ومجالة مقدشة عاصمة دالكهنا مراهيدي دالكا صدن سنة كبدن أو ضيع وكجري هدا مجالة إسبدل أيها كموقدة كدي مركي شعب كملايين أي دبرك أو حرتين إن مجالة دا قروح صدان كان شقيان أمانك إنكستو دورك دولة فدرالك سيدي الله بهنا آنو أهين شعب كعاصمة دا waxay isku dhaarsadeen inay gacan adag isaga qabtaan cid walba oo magaalada subcad xumeynaysa kana shaqeynaysa amni darada magaalada Muqdisho waxa hadda ka jira amaan buuxa oo waxay dadku ka nasteen falalkii ay argagixisadu geysan jirtay iyo sidoo kale burcadii ciyaalka weerarada kadib wada shaqeyn dhex martay hay'adaha amaanka ee dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee Muqdisho shacabka waxay ka soo baxeen guryahooda iyadoo cid walba oo dib wada durbal lagu wargelinayo hay'adaha ku shaqada leh argagixisaduna waxa ay waayeen fursad ay magaalada qalqal ugu beeraan iska daa qaraxyo ay geystaan xitaa waxay la yihiin meel ay si nabad ah ugu gam'aan oo magaalada ka tirsan hay'adda nisa oo iyana garatay shaqadeeda saxda ah ayaa ciidan dharcad ah ku daadisay guud ahaan magaalada kuwaas oo soo qabta cid walba oo amniga wax u dhimaysa laakiin hay'adan wali waxa ku dhex jira rag qabasho u baahan oo shaatiga hay'adda shacabka u badan dhalinyarada ku gumaada magaalada aad ayay u dhisantay waliba u sii qurux badnaatay muddooyinkan dambe sidoo kale waxa guud ahaan magaalada Muqdisho ka jira kororka xarumaha ganacsiga ee qaabka casriga ah loo qalabeeyay balse waxa jirta ganacsato dalka u yimid sidii ay bulshada u furan lahaayeen dhanka ay doonaan baha soo maraane waxa sidoo kale magaalada ku yaraaday goobaha lagu iibin jiray waxyaabaha maanka dooriya sababahan dartood maamulka gobolka Banaadir oo go'aan adag ka soo saaray arintan kuna beegsaday xarumo badan oo lagu iibinayay waxyaabaha maanka dooriya iyo goobo lagu isticmaalayay laakiin magacyadooda lagu sheegay hoteelo kuwaas oo qaarkood ku yaalay xeebta Liido oo howlgallo uu hogaaminayay duqa Muqdisho loogu galay kumanaan dhalinyaro rag iyo haween isugu jira oo hal meel ku wada isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya mar haddii amniga magaalada hagaagay shacabkuna habeen iyo maalin si isku mid ah u socon karaan waxay taasi horseedi doontaa in shacabka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku sugan ay ku dhiiradaan maalgashiga magaaladooda iska daa Soomaalida xitaa ajaanibta ayaa markan ku dhiiran doona in Muqdisho ay maalgashi ballaaran ku sameystaan goobaha bulshada isugu timaado sida maqaayadaha iyo molalka waxay u muuqdaan kuwa magaalada ku soo batay waxayna tani muujinaysaa nabadda ay reer Muqdisho haystaan waxaana sidoo kale meesha ka baxday fikradii ahayd in amniga magaalada lagu halayo dawladda oo kaliya laakiin shacabka waxa ugu weyn ee ay tabayaan ayaa ah cadaaladda oo wali qayb ka mid ah garsoorka dalka uu aad u liito shakhsiyaad gaar ahna ku adeegtaan iyadoo dana gaar ah laga leeyahay haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dhabeeyo helista garsoor cadaalada xajinta amniga caasimadda canshuurta shacabka laga qaado oo iyaga dib loogu soo celiyo waxay ka dhignaan doontaa in Muqdisho ay ka hormari doonto magaalooyin badan oo dunida horumartay ah dhanka kale waxyaabaha hadda ay shacabka Muqdisho ka sugayaan dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh waxa kamid ah helista adeegyada muhiimka ah ee dawladda looga baahan yahay maadaama shacabkan ay yihiin kuwa kaliya ee sida saxda ah u bixiya canshuurta ku waajibtay marka laga soo tago sugidda amniga Muqdisho waxay shacabka ka sugayaan dawladda federaalka helista waxbarasho iyo isbitaalada lacag la'aan ah in la helo gaadiidka dadweynaha oo dawladdu mas'uul ka tahay loo kala qaybiyo magaalada walibana shacabka ku raacaan qiimo aad u jaban sidoo kale maamulka gobolka Banaadir oo u muuqda mid ku baraarugay warbixinadii aan ku xasuusinay waajibaadkiisii ayaa isna waxa laga sugaya in sidii uu u xiray xarumaha lagu fasahaadinaya dhalinyarada Muqdisho in si la mid ah talaab uga qaado dadka u soo shaqo taga Muqdisho ee doonaya inay shacabka furtaan sida kuwa leh isbitaalada ee ganacsiga ka dhigtay caafimaadka bulshada iyo kuwa dalka keena dawooyinka aan tayada lahayn maqaayadaha sida Yurub ama Ameerika oo kala qiimahooda sare loo qaaday iyo wax walba oo bulshada caqabad ku ah in uu ka hortago maamulkan shacabka Muqdisho waxay sidoo kale sida ugu dhaqsiyaha badan madaale uga sugayaan inuu dib u ifiyo caasimadda Muqdisho oo badi ay dameen nalalkii ku shaqeynaya cadceedda taraafikadii luntay oo dib loo soo celiyo lagana qabto laaluushka ay barteen wadooyinka magaalada oo dhan oo lagu xiro kaamirooyinka amniga shirkadaha korontada ee shacabka dhiiga ka mirtay oo lagu qasbo dhimista lacagaha ay ka qaadaan guryaha Muqdisho laguna amro in baale walba oo koronto u marto ku xiraan nalal ama leyr si Muqdisho ay laba bil gudaheed ugu noqoto mid wada ifta Muqdisho waxay markan u baahan tahay horumarin ee uma baahna in loo soo shaqo tago shacabkeeda la boobo ama shacabka laga dhigo kuwa ku jira xabsi kor ka feedan dawladnimadu waa naxariis iyo in loo qidmeeyo shacabka mas'uulka laga yahay shacabkana laga helo wax walba oo ku waajiba daawade maxay kula tahay aragtidaada fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb muuqaalka share garay si dad badan u gaara mahadsanid